عد كسته الصوماليات مسلمين يعد كسته عقلي سليمة له ارتباط وتحسيدينية جرد وان كواركي ودي الميني سوى كاغا تحسيدينية نفط إذا نوغا تحسيدينية أيام دردا إن وحان إلا إيو إمنك أن قران لا أحي قاري وين إنت هو كسو بوحيو meel rayada inaan dhex dhigo caruuri meel ay buskud iyo bajiye ka iibsanayso iyo mushurow iyo nacnac meelay ka iibsanayso inaan dhex dhigo falsafada ka dambaysa maxaad u malaynaysaa bismillahi raxmaani raxiim xagar waa mahadsan tahay ugu horeyn kullu nafsin daa'iqatu lmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم اجعلنا من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وهرين وحان تعسي تيران يلا أدريا بدهان أمدي الصوماليات ويسسكي أهلكي أي طبكين وكبنتين كبنتين runtii 14 Oktoobar waxay ahayd maalin bedeshay dareen badan oo ummadda Soomaaliyeed waxay ahayd maalin kamida maalmaha adduunka ina soo maray laakiin maalintii ugu murugada badnayd waxaan jeclaan lahaa inaynu dhowr arrimood xaqiijino maalintaas maalin loo baahan yahay inay wax ina barto maalin loo baahan yahay ina ina barta cadawga Soomaaliyeed waxa uu inala maagan yahay kamka uu leeg yahay maalin loo baahan yahay ina ina barto in ummadan Soomaaliyeed la qorsheeyay in dunida laga tirtiro maalin loo baahan yahay in la garwaaqsado cadawga Soomaaliyeed inaanu wax uu inoo hakranayo aanu jirin maalin loo baahan yahay fikradda ka dambayso ugu horeyn waxaan rabnaa inaan xaqiijino inagoon cid gaara ku tuhmaynin in ay ama haqirtaan ama yeen qiranin horta ha is ogaadaan inay yihiin cadawga ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah annana aan ognahay waa inay ogaadaan diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo diin kasta oo Ilaahay samada ka keenay inaanay waxa ogolayn inaguna loo baahan yahay inay ina midayso taas ina midayso isku tareen baan saarannahay waa ina wada dilayaa cid gaar ah oo loo socdaa ma jirto waxa gooba taagad kuwa Soomaaliyeed marka waxaan jeclaan lahaa intaas inaan ka fahmo maxamed cali xuseen degweyne jirridaha ee dalka Turkiga aad beerinta Soomaaliya uga qoreen Soomaaliya iyo Turkigu xiriir caawimo هذا كل ما لهان جريمة كسم حقوق سوي هذا بعد السلاح. بسم الله الرحمن الرحيم حجر وما تصنت هاي هرت تركي جو وضل وحول بقينا مذيع صاحب مئة ولا الوي وحين هو كل دولنا هنا أصلا مجرد وأمريكا كوبادي هرت هل دولة بينه هنا والي نكل جويو خلافة الإسلام كا يجا مضحكة وعثمانيين تي اللي عثمانيين تي طلبات وأود سني وحوق بدن ودنيا صاقش مددر باي وحي وهنقل تاجه إني ميدا ويوروب يدين عناته ودوادان واحد كليه عقبات كنا قضينا وين السنيين مسلمين يهين انت هاسي الباب والباء لويل انت الله ياري ميدا ويوروب والنادي مسيحية سأدرت لأني كمان أحبهنا وحوه باللويلي سياسة ضد مركو حي أول شيء إن الدنيا مسلم كا يعني بنياش مسلم كا أي كهالله هالكاسر نمدا إني أنه حر بدنته marka saxaafadoodu aad bay u soo qaaday taageeradoodana wad arkaysi waxaad ogaataa ummadda Soomaaliyeed wuxuu yiri nin gabiyay nin ganiya libaax waa og yahay kii galadaya wadaan macnaha ummadda Soomaaliyeed ninka wax tarahay iyo ninka mujaamalo u hayo way kala ogaatay Soomaalidu waxay dhadaa bukaan raagay doctor buu noqdaayo 7 sanaan jilicsanayn marka waxaad moodaa inaan hadda aad u kala baranay marka aad baan u hambalyeynaya doorka Turkiga iyo siyaasadooda aad anaga nagu wajahan oo siyaasad walaalnimo ah degweyne aaw carabi laan carabina
walaal carab waan nahay jaamacadda dawal carabiyan ku jirnaa dunida muslimka ay kamid yihiin laakiin carab Soomaalidu waxay dhahdaa tiisa daryeela tu walaal ku dar Soomaaliga garan carab iyadii baa meesha aragtay taalo Yaman baad ogtahay Suuriya baad ogtahay Sacuudi baad ogtahay Ciraaq baad ogtahay carabi iyada ilaahay aan uga rajeynayna inuu ilaahay u soo gurmado oo u soo bixiyo waxyaabo aan kaga cabanayno badan oo ku dhaliilayna way jirtaa laakiin waxa kaliya ka fahmnay waxa weeye carab in la isku halayo ma istaasho in kasto ay isdhaamaan oo qadar ba aad arkaysay oo ay soo gurmato ay noo timid qadar ba ay noo timid dad 40 meeyay qaaday Suudaan bay ka dajisay maadaama in iyaga hawadoodii ay mari karin Suudaan bay ugu horeyntii mariyeen ugu dajisay bal hadalka ay wajeen journalka wax ku arkay isagana the standard journal kale isagana lagu magacaabo Washington Post wana arkay maxay ugu dajisay qaan Suudaan والله هرت الدولة السياسة إياها إسكاله أنا ما أنا تدقيقين وما بارين لكن واحد كليا حقيقي وحاول ديارات دي داوع الصومالي قاطع قطر أيل هيدا يقولي بقطر أيل ويسه إن السودان كدك اللهم إن السودان كده وين دون يا إن حالات شري درت هاد السودان وسي مرتدل كيدو قدين دون ما جرانا يو لكن داوع صحوه مري خرطوم بوتي. أن سؤال خلينا كويدين دون بلاد وحيلا اللي قدبان مدح الصوماليين جورلو ويدون فرح سنة مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية مدن محمد عبد الله فرماتش يا باغ جديي إن هذا الله عربابي لكن بالهذا إن جريدة تركيا أو جورنالات تركيا أقدر دقيقة أمورتن يدا حديث كأنه لا لأن هاي لا هو إن ذلك تركيا iyo xogaa antigadan faraha badan ee antigadan weyn ee wafkiin way buuxinayo muhiimtan maxaa ka iman kara wax dhigo ma naga iman kara siyaasiyan marka siyaasadda ariga horta ha oo maya waxaan labadaba u wada leeyahay wax way inaga iman karaan oo ugu yaraan dunida Carbeed ma rabto Turki iyo soo gelintiisa iyo wujuudka Turkiga ee geeska Afrika xooga badan ma rabaan Turkiguna maslaxadiisa ka dhaxarka oo meel istiraatiiji ah ku naalna inagu buu Ilaahay inuu tusina dunida waa in aragtaa meesha Ilaahay nagu beeray iyo nooca ay tahay waxa ka iman karto in dunida Carbeed halkii ay kan dhaawaca siin lahaayeen inaga ay nagu kala geeyaan dhaqaalahooda ay haystaan inaga ay nagu kala geeyaan siyaabo kala duwan hoosta habeenkii inooga soo duso oo waxyaabo gaar ah leena siiyo haddii la heli karo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa la isku dhufto madaxweyne ku-xigeenkiisa la isku dhufto arrimaha noocaas way waxba inaga iman karaa laakiin waxaan halbaan kaga badbaadi karnaa sida aragtidayda waxaan kaga badbaadi karnaa haddii istiraatiijiyadda Turkiga ee ku aadan geeska Afrika haddaynu si dhab ah u isticmaalino u maalgelino aynu dhaqan gelino waxaan hubaa inaynu cadowgeennana ka adkaanayno ummadda Soomaaliyeedna ay wax badan ka faa'iidi karto kelmadda maxaad ka wadaa inuu si dhab u maalgelino aynu macnaha inaan laba gacmood ku wada haynin aynu isku geyno aynu macnaha siyaasad laba wajiila aynu ku dhaqmayno si dhab ah isaga aan ula dhil garayno journalada adduunku waxay weegan wada qaada dhigayeen journalo fara badan sida La Libre ee ka soo baxday magaalada Paris oo iyadana Eiffel Tower ka magaalada Paris la fahanteeda in la baqtiyay in journaladu waxbay ka qoreen in jarida lagu magacaabo Süddeutsche Deutsche Zeitung oo ka soo baxda dalka Jarmalka fara Allgemeine Frankfurt waxbay ka qortay Soomaaliya dagaal bay islaamisay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo garab taagan yahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ilaa iyo 14 milyan oo dollarka Mareykanka ayay yiraahdeen oo hordhaca ayaanu dagaalka ku bilaabaynaa taa macnaheedu waa maxay ku kordhinaysaa dagaal la galo lacag badan maxay ku kordhinaysaa dagaal la galo khaymiinta horta walaal hal baan rabnaa inaan kala saarno madax iyo shacabba kelmadaha iyo handadaada caadifada ku dhisan iyo waxa dhabta ah inay inoo kala soocayihiin baa la rabaa madaxweynuhu bikul ixtiraam waxaan uga soo joognay marar badan inuu dagaal ku dhawaaqay oo tuuta xidhay wax badanna nolosheena kama bedelin bal waxaad moodaa inay magaalada caasimaddu ay qaraxyadu ku sii bateen madaxweynaha kama rabna ballanqaad iyo lacagtaas aan ugu talagalnay siyaasad iyo istiraatiijiyad baan horta ka rabnaa kama rabno istiraatiijiyad dagaal oo ku gala kaliya istiraatiijiyadii dalkan lagu maamuli lahaa iyo masiirkii ummadan 30 milyan inuu meel daadsan tahay qaabkii lagu maamuli lahaa madaxweynahan ka rabnaa
waa sax inuu wax bilaabo oo wax uu hayo uu wax ku bilaabo waan mubaarakaynayna waan hambalyaynayna waan soo dhaweynayna laakiin waxa aan rabno waxa weeyo walaal war magaalo waa kii meel ku qoran baa leeyahay macnaha ma rabno madaxweynuhu hadda inuu la soo baxo uu dhaho lacagtaasaan ugu talagalnay talagalku waxaan rabnaa inuu isagoo lacag la'aan la talagalo isagoo lacag la'aan la talagalo hawshaasaan rabnaa hawshaas way wax looga baahan yahay caruurtiiba diyaara ardaydiiba diyaara hooyooyinkiiba diyaara wariyaashiiba diyaara hogaamin baa loo baahan yahay hogaamin baa loo baahan yahay oo hogaamin baa loo baahan yahay oo siyaasad dadka midayso siyaasad dadka midayso ma rabno inta siyaasad dadka kala jabisa la qaato inay dadka kala jabay laga faa'iideysan ma rabno dadka kala jabay laftirkooda inay wax sameeyaan ma rabno muqdisho waxa ka dhacayo wajiyo badan bay leeyihiin waxaan rabnaa muqdisho dadka ummadda Soomaaliyeed inay ku midoobaan cadawga Soomaaliyeedna uu waji yeesho waa mahadsantahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxaa ila gorfaynaya wargeysyada Maxamed Xali Xuseen Dagaweyne gorfayntii wargeysyada ayaanu ku jiray bal hadda iminkana aynu bariga Afrika iyo Soomaaliya aynu kor uga yara fulla badweynta Hindiya sii jiirno dhankaas iyo dunida kale sida ay qortay jariirada lagu magacaabo Israel Today oo ka soo baxda wadankaasi Israel dawladda Yuhuudda iyadoo kuma faraxsana heshiis lagu dhisayo awoodda military ee Sacuudiga oo ay kala saxiixdeen Sacuudiga iyo dalkaasi Ruushka laguna kala saxiixday qayb ka mid ah magaalada Moscow General Shaawi waa rug cadda in amaba in ka badan 30 sanadood ka soo shaqeeyay sirdoonka Israel sidoo kalena xilal kala duwan soo qabtay wuxuu sheegay in heshiiska uu khatar weyn ku yahay jiritaanka Israel ayna weliba buu yidhi suuragal tahay in mustaqbalka fog hubkaasi Israel iyo danaheeda lagu waxyeelayo aynay ka jeclaan lahaayeen meesha uu Ruushku ka siiyay Sacuudiga hub in Mareykanka iyo Sacuudigu arrintaasi kala saxiixdaan dhinaca kale wuxuu generaalku sheegay in hubka Sacuudigu helay ay u badan tahay in dagaal dhexmara Iiraan iyo Sacuudiga loo adeegsado taas oo buu dhinaca kale yidhi faa'iido u noqon karta dalkaasi Israel waa sida ay qortay jariirada lagu magacaabo The Israel Today waxay ka soo baxdaa magaalada Tel Aviv Maxamed Dagaweyne ay la dhaanta Israel maxaa ka dhalan kara baad is leedahay heshiis hub Ruushka iyo Saudi Arabia waa mahadsan tahay waa markay Tel Aviv joogna hadda maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan karo dhowr arrimood waxaa jiro Israel waxay jeclaan lahayd inaan Saudi laba hubaynin horta been buu ka sheegay hadduu yidhi Mareykan inuu hubeeyaan jeclayn ma jeclo inaan laba hubaynin buu ka sii jeclaan lahaa intaan markaan ka imaado waxaa kaloo waxaa Mareykanka iyo Israel heshiis ay galeen oo taariikhi ahaa baa jiray wuxuu qorayaa qodob ka mid ah inay waajibta dhammaan dawladaha carabta marka la isku daro awoodooda inay Israel mar walba ka awood badan tahay sumada garan Ruushka heshiiskaas ma quseeyo marka isagu lacag baa qusayso waa tumaalka lacag la'aan waxa meesha marka ay Mareykanka waxay ka rabaan laba arrimood bay Israel Mareykanka ku daqdin war horta Sacuudi ha hubaynin haddaad hubayso bedel nasi wax iyada waxeeda ka qaalsan horta ku qaadata waxyaabahan hadda Imaaraadka iyo dawlad majlis taawun khaliiji leeyahay kacaankan bahalkan isbahaysiga khaliijka Mareykanka heshiiska kula jira military waxa la siinayo Israel baa dirbiga gadaashiisa ku soo maamusho aslan marka waxa kaliya ay rabtay Mareykanku inuu hubayaan rabnayda wuxuu ka wadaa inaan ognahay waxa la siinayo S400 baa la siinayaa oo Sacuudiga hawadiisa difaacayo
waxaa la siinayaa waxyaabo aanay sacuudi iyo ruush midna sheegin baa la siinayaa